بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. شيخ سائلكني waxa uu leeyahay sideeba aan kor ugu qaadi karaa khushuucda qalbigayga. بارك الله فيكم أفيدونا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. khushuucdu waxa ay ka mid tahay sifaadka wanaagsana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ammaanay addoomihiisa, gaar ahaan salaada dhexdeeda. qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. ilaahay wuxuu uhi waxaa liibaanay kuwa mu'miniinta ah ee salaada marka ay ku jiraan khushuuca. khushuucda macnaheedu waxa weeye qofku inuu dareemo macaanka iimaanka, waa inuu qalbigiisu noqdo munkasir amaama allah. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu hor taagan yahay ama markuu dhegaysanayo hadalkiisa ama uu akhrinayo, inuu qalbigiisu ilaahay u dulloobo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u khushuuco. khushuucdu waa qofka qalbigiisu inuu ku xasilo khayrka oo uu ku dego oo uu macaansado. salaadu waxa ay ka mid tahay amaba la odhan karaa waa cibaadaadka qofka bani aadamka ee jidhkiisa uu ka sameeyo cibaadada u weyn, waana cibaadada u fadli badan, sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan uu ku tilmaamay. shaydaanku waxa uu ku dadaalayaa salaada qiimaheeda iyo macaankeeda iyo sifaadkeeda wanaagsan inuu kala dagaalamo addoomaha ilaahay. sidaas awgeed qofku marka uu salaada galo ayaa waxa uu ku furayaa waswaas uu kaga mashquulinayo salaadiisa iyo dhugashada iyo u fiirsashada waxaanuu leeyahay iyo waxaanuu akhrinayo macnihiisa. waxaa markaa qofka muslimkaa la gudboon inuu ku dadaalo khushuucda salaada dhexdeeda oo uu iska difaaco weerarka shaydaanka xaggiisa kaga imanaya. khushuucduna salaada dhexdeeda waa waajib, oo qofku haddaanu salaada dhexdeeda khushuucinba in yar iyo in badan toona, qofkaasi wuxuu ka tegay waajib ka mida waajibaadkii salaada, waxaanu noqonayaa qof dembaabay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala caasiyey. waxaa u daliilo khushuucdu inay waajib tahay qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi wastaciinuu biالصabri wالصalaaة wainaha lakabiiratn ila clى اlkhaashiciin. ilaahay wuxuu uhi waxaad kaalmaysataan sabirka iyo salaada. wuxuu rabbi tilmaamay salaadu inay ku adag tahay kuwa khaashiciintaa cidda aan ahayn. qof kastoon salaada dhexdeeda khushuucin, salaadu inay bir ku tahay oo ay ku adag tahay buu ilaahay tilmaamay. waxay aayaddu tilmaamaysaa khushuuc la-aanta salaada dhexdeeda qofku aanu khushuucini inay tahay sifo xun oo ilaahay uu ku dhaleeceeyey cidda ku sifaysan. ilaahayna subxaanahu wa tacaala addoomaha kuma dhaleeceeyo ka tegitaanka waxaan waajib ahayn. marka khushuuc la-aanta mar hadduu ilaahay ku dhaleeceeyey inay shay waajib oo khushuucdiiya ka tegeen ay aayadda qur-aankii tilmaamaysaa. aayadda kalenu akhrina ilaahay wuxuu yidhi qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. kuwa mu'miniintaee salaada dhexeeda khushuucaya waxay helayaan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamay. waxaa rabbi u yihi subxaanahu wa tacaala ulaa'ika aladiina yarihuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun. kuwa sifaadka iimaanka iyo khushuucdu ay u horaysan lihiin waa kuwa firdowsa dhexlaaya, iyaga ayaana ku waaraya. waxaa aayadda qur-aanka laga fahmayaa qofka aan khushuuc lahayni inaanu isagu helahayn abaalmarinta ah oo ah dhaxalka firdowsa. taasina waxa ay tilmaamaysaa inuu qofku ka tegay waajib waajibaadkii salaada ka mid a haddii aanu salaada dhexdeeda khushuucin. waxaa khushuucda qofka u sababi kara guud ahaan marka la qiimeeyo laba arrimood: inuu ku dadaalo waxyaabaha khushuucda kordhiya, iyo inuu ka dadaalo iska ilaaliyo waxyaabaha khushuuc la-aanta bidaaya.
waxyaabaha khushuucda qofka sabab ugu noqon kara waxaa ka mid ah inuu qofku salaada marka hore u soo diyaar garoobo oo gurigiisa uu ka soo weysaysto oo gurigiisa uu ka soo niyeysto inuu masaajidka tagayo isagoo salaad mooyaane wax kale aan u tagahayn intaa uu soo socdo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xuso waxyaabaha markaa cabadkii aan macnaha lahayn safaro oo la isdhexgeliyo ama la jajabiyo ama daymoodka faraha badanna waa inuu iska ilaaliyo masaajidka marka uu yimaado intaanu masaajidka iman si degan waa inuu usoo socdo waxyaabaha daalin kara ee xiijin kara waa inuu iska dhowru iska ilaaliyo siduu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ida ataytum الصalaata falaa ta'tuuha waantum tascawn waأtuuha waantum tamshuun wacalaykum bالsakiinati wاlwaqaar salaada markaad imanaysaan idinkoo ordaya ha imanina idinkoo soconaya oo tallaabsanaya yimaada markaad salaada ku soo socotaanna si degan oo xasilooni ku jirta u socda masaajidka markuu yimaado waa inuu ilaaliyo aadaabtii masaajidka waa inuu lugta midig horaysiiyo markuu gelayo inuu akhriyo ducada masaajidka lagu galo bismi illaahi wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma iftax lii abwaaba raxmatika iyo ducooyinka kale lamidka ah masaajidka inta uu ku jiruu salaada sugayo waa inuu ogaado inuu la mid yahay qof salaad tukanayo oo kale ficil iyo hadal xun iyo ciyaar iyo dheeldheel dhammaanteed waa inuu iska ilaaliyo salaada marka uu qofku galo waa in uu ku talagalo salaaddaa salaad ka dambaysa inaanu tukanahayn oo xaalkiisu waa inuu noqdo sida uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam salluu salaata muwaddic waxaad tukataan mid adduunyadan sagootiyaya oo ka tegaya salaaddii oo kale salaada dhexdeeda qofku waa inuu geerida ku xusuusto rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi udkur ilmowta fi الsalaa faina arajula ida dakarahu fi الsalaa yuxasinu salaatahu salaada dhexdeeda geerida ku xusuuso inaad dhimanayso adduunyada aad ka tegayso oo lagaa kaxaynayo waayo ninku salaada isagoo ku jira hadduu geerida xusuusto salaadiisa ayuu wanaajinayaa xagga qalbiga iyo xagga intan muuqataba xadiidka sheekhu اlalbani silsilaة اlaxaadiid asaxiixa ayuu ku qoray waa inuu qofku u fiirsado qur'aankan uu akhrinayo macnihiisa waanu carabkoo qura ka akhrina qalbigana uu ka akhriyo afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calىa quluubin aqfaaluha buuhi ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ilaahay canaantay oo u dhaleeceeyey kuwa qur-aanka akhrinaya ee macnihiisa aan u fiirsanahayn sidaasoo kale adkaarta faatixada markuu akhrinayo kelmad walba macnaheeda waa inuu qalbiga kusoo xaadiriyo markaasuu noqon karaa qof khushuucsan allahu akbar markuu leeyahay allahu akbar macnaheeda waa inuu ufiirsado markuu rukuucsanyay subxaana rabbiya alcadiim macnaheeda markuu rukuucda ka soo tooso samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu macnaha ay tusinayso marka uu sujuudo subxaana rabbiya alaclaa macnaheeda markuu atixiyaadsanayo kelmadaha atixiyaadka mid waliba macnahay xambaarsantahy waa inuu ufiirsado markaasuu qofku noqon karaa qof khushuucsan oo qalbigiisu uu khushuucsan yahay waxa madluubkee la rabaana waa khushuucda qalbiga oo haddii qofka iyadoo qalbigiisu aanu khushuucsanayn uu iskojiyo uu iska khushuuciyo wejigiisa iyo garbihiisa iyo khushuucu ka muujiyo taasi waa khushuucda nifaaqa wuxuu uhi xudayfa ibnu lyamaan radia allahu canhu iyaakum wa khushuuca nifaaq waxaan idinka digayaa khushuucda nifaaqa ku dhisan waxaa lagu yihi waa maxay khushuucu nifaaq wuxuu yihi an yakshaca badanuhu walaa yakshaca qalbuhu waa in qofka jidhkiisu uu u muuqdo mid khushuucsan iyadoo qalbigiisu aanu khushuucsanayn waxyaabaha khushuucda kugu kaalmayn kara waxaa ka mid ah markanaad tukanayso ilaahay inaad hor taagan tahay oo rabbi aada la hadlayso oo ilaahay aada u jawaabayso waa inaad xusuusnaato wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yidhi qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii salaada waxaan u qaybiyey aniga iyo addoonkayga faإida qaala alcabdu alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin qaala allahu tacaala xamadanii cabdii
addoonku markuu yidhaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay wuxuu odhanayaa addoonkaygii wuu i ammaanay. waidaa qaala alcabdu alraxmaani alraxiim qaala allahu tacaala ahnaa calaya cabdii. markuu alraxmaani alraxiim addoonku akhriyo ilaahay wuxuu odhanayaa addoonkaygii ammaantu i ammaanaya buu ku celiyey. faidaa qaala alcabdu maaliki ywmi اddiin qaala allahu tacaala majadanii cabdii. maaliki ywmi اddiin markuu akhriyo ilaahay wuxuu odhanayaa addoonkaygii wuxuu farabadiyey oo uu ku sii celceliyey ammaantu i ammaanayay. markaas waa su-aasha ama jawaabta iyo hadalka ilaahay iyo addoonka dhex maraaya. markaa ka waran ilaahay subxaana wa tacaala haddaad ka jeedsato, qalbigaaga aad kaga jeedsato, waxaa la dhaleeceeyey inuu wejigaagu ilaahay ka jeesto adoo salaada ku jira, oo rasuulku uu ku sheegay dhufasho shaydaanku salaada qofka wax uu ka dhufanayo. maxaad u malaynaysaa iltifaatu lqalb hadduu qalbigaagii meel kale uu daymoodo? waxaa ka mid ah asbaabta khushuucda in aad shaydaanka iska naarto. markaad wasaawis dareento, shaydaan khinzib la yidhaahdo ayaa salaada kugu soo weeraraya. waxaa xusuuso sheekadii adduunyo hortaada keenaya adoo salaada ku jira. marka waa inaad dhinaca bidix intaad yaro daymooto waa inaad tidhaahdo acuudu billahi min ashayطaani الrajiim adoo 3 jeer dhinaca bidix sidii qof wuxu tufaayo oo kale ah. shaydaankaasi ku mashquulinaya khushuucda kaala dagaalamaya ayay dawo kaaga noqon doontaa. waxaa khushuucda kugu kaalmaynaya waxyaabaha khushuucda kaa hor istaagaya inaad iska ilaaliso. waxyaabahaasi waxaa ka mid ah inay adduunyadu noqoto hamigaaga u weyn. waa inaad arrinta noocaasa horta iska dawayso. haddii hamigaaga u weyn uu noqdo hamu dunya, weligaa salaad dhexeeda mashquuli maysa, khushuuci maysa. waxaanu qalbigaagu ku maqnaanayaa mar walba adduunyada hamigiisa weyna. waa inaad iska ilaaliso waxyaabaha qalbigaaga mashquulinaya, oo ay ka mid tahay maryaha sawirka leh, oo ay ka mid tahay sijaayadaha markaa shagaar kale ama sawirada leh ee qofka mashquulinaya. waa inaad iska ilaaliso dhegaysiga salaada adoo ku dhex jira aad dhegaysanayso dad wada hadlaya ama sheekaynaya ama muxaadaraynaya ama khudbadaynaya ama qur'aan akhrisanaya. waayo maa jacala allahu lirajuli min qalbayn, qofna ilaahay 2 qalbi uma yeelin. qalbigaagu ma qaadi karo inaad salaadaada qaabisho iyo inuu wax kale ku maqnaado oo u dhegaysto. akhiiran ugu dambayn ilaahay baa khushuucda bixiya, waa fadlu min allah. ilaahay dhammaanteen baa aynu ka barino inuu khushuucda inagu arsaaqo salaada dhexdeeda iyo cibaadaadka kaleba. wallahu aclam. baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra. sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay ma u bannaan tahay gabadhu inay u baxdo dabadda iyada oo indhakuulan, ama ha soomanaato ama yaanay soomanaanin? afiiduuna baaraka allahu fiikum. indhakuushu waxay ka mid tahay waxyaabaha quruxda loo isticmaalo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ka mamnuucay dumarka muuminaadkaa tabarujka, oo ay ka mid tahay idhaaru ziina, quruxda ilaahay u abuuray ama quruxda muktasabkee la xidho ama la ismariyo muujinteeda. qaala allahu tacaala fi lqur'aani alkariim waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa. guryihiina ku nagaada dumarow oo dan iyo baahi idin saarta mooyaane ha bixina. marka aada baxdaana is-astura, quruxdana ha muujinina, oo ha u muujinina quruxdiina siday quruxooda u muujin jireen dumarkii noolaa waktigii jaahiliyada oo islaamka ka hor. waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi dumarka muuminaadka isagoo la hadlaaya, walaa yubdiina ziinatahunna, yaanay muujinin quruxdooda. waxaa soo gelaysa quruxdii jidhka ee ilaahay u abuuray iyo quruxda muktasabkaa ee qofka bani aadamka ay jidhkiisa uu ku kordhiyo, maryihii quruxda badnaa ee bilicda lahaa ee indhaha soo jiidanayay, iyo quruxda kale dumarku ay ismariyaan sida indhakuusha iyo khidaabka ama xinaysiga iyo waxyaabaha la midka ah.
marka ma banaana gabadha muslimadda ahi inay gurigeeda ka baxdo iyadoo indhakuushuna ay u muuqanayso ragga iyo dadka kale ay dhex marayso. hadday sidaa yeeshana waxay ka mid noqonaysaa dumarka uu rasuulku ku tilmaamay inay yihiin mumiilaatun maa'ilaat, kuwa xaqa ka leexsan dadkana fitneeyo xaqa ka leexiya, abaalmarintooduna ay tahay laa yadkhulna aljanna walaa yajidna riixa, jannada geli maayaan, udugeedana heli maayaan. rabadaan hadday tahay iyo haddaanay rabadaan ahaynba arrintaasi uma bannaana. rabadaan markay tahayna arrintaa dembigeedu waa sii weynaanayaa. marka ilaahay dumarku ha ka baqdaan subxaanahu wa tacaala oo naftooda ha asturaan, quruxdoodana yaanay muujinin. wallahu aclam. baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra. saa'ilkani sheekh waxa uu leeyahay diintu maxay ka qabtaa in ilmo aan dhalay oo nin hore aan u dhalay aan ugu abtiriyo ama qoladiisa iyo magaciisa aan ugu sheego nin dambe oo aan guursaday? afiiduna baaraka allahu fiikum. nasabkii abtirsiintu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha diinta islaamku ay ilaalisay. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala dadka ka dhigay shucuub iyo qabaa'il si ay isugu aqoonsadaan oo mid waliba qaraabadiisa ugu xidhiidhiyo, oo mid waliba axkaamta sharciga ee ka dhalanaysa arrintaa uu ilaaliyo. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: tacallamuu min ansaabikum maa tasiluu bihi arxaamakum. waxaad ka barataan nasabkiina iyo abtirsiintiinna in sabab idinku noqota inaad xidhiidhisaan qaraabadiinna. qofku haddaanu garanayn cid ay qaraabo yihiin, arrintaa qaraabo xidhiidhinta ayaa meesha ka baxaysa, oo shareecada iyo xukunkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waajibiyey ayaa lumaya. waxa islaamku si adag uu uga digay oo dembiyada waaweyn uu ku daray in qofka nasabkiisa iyo abtirsiintiisa la duro, atacnu fi lansaab, ama gabay ha lagu caayo amaba se hadal kaleba ha lagu caaye. waxa islaamku uu ka digay qofku inuu ku abtirsado cid aan dhalin. waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaamay inay kufri tahay min alkufri an yantasiba arajulu ilaa gayri abiih. waxaa ka mid a dhaqankii iyo caadadii kufaartu ay lahaayeen, oo qofka muslimkii inuu ka shabahana aanay bannaanayn inuu ninku ku abtirsado cid aan aabbihii ahayn, uu yidhaahdo hebel baa i dhalay, abtirsiintana isaga uu marsiiyo. haddii hooyadu inankeeda ama inanteeda ay ugu abtiriso nimaan dhalin oo iyadu ay u dhaxday, arrinta noocaasi waxay noqonaysaa inay ugu kaalmaysay dembigaa weyne rasuulu kufriga uu ku sheegay. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu mamnuucay inay dadku isu kaashadaan, ay isku caawiyaan wax dembi iyo khalad ah. walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. waxaana ficilka noocaasiya ka dhalanaya waxyaabo fara badan oo shareecada islaamka ku foolxun, oo markaa nin aan dhalin ilmihii loogu abtiriyo, waxyaabaha ka dhalanaya waxaa ka mida inuu dhaxlo xoolo aanu xaq u lahayn. waxaa ka dhalanaya ikhtilaatu lansaab, in nasabkii uu isdhex galo oo isku kharibmo. waxaa ka dhalanaya dad aan maxram isu ahayn in maxram la ysaga dhigo, oo inankaasi hablihii ninkaasi uu dhalay ee gabadhani aanay u dhalin in walaal ay ka dhigtaan ama isaguba uu ka dhigto, oo dabeetana meel uu kula gooni noqdo inan hablaha ka mid ah, amaba se waxa weeyaan uu gacan qaado, ama iyadoo bilaa xijaaba ay kulmaan. intaasibana waa dembi iyo wax sharciga ilaahay ku foolxun. marka waxyaabahaas oo dhan ayaa ka dhalanaya. ma bannaano arrinta noocaasi. inankeedana gabadhu inay lugoyso ma aha, ciddii dhashay waa inay ugu abtiriso. isaga laftiisu markuu ogaado ninka loogu abtirinayaa inaanu dhalin, arrintaasi niyad jab bay sabab ugu noqonaysaa, waxaanay ku kalifi kartaa dembiye kaloo foolxun inuu sameeyo. wallahu aclam. baaraka allahu fiikum wa axsana allahu ilaykum. sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay diintu maxaa ay ka qabtaa haddii ay tinta aflaaqa igaga dhacdo? waa gabadh baan u malaynaya. in aan tintii ama timahayga aan gooyo
intooda hore afiiduuna baaraka allahu fiikum. dumarku timaha inay xiiraan haddii aanay daruura keenin uma bannaana. saasi awgeed xiirista waxaan uga jeedaa inay dhukurtaan oo timaba madaxa aanay kaga tegin. sida awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xajka markuu ka warramayey laysa cala annisaa'i xalqun wa inamaa cala annisaa'i altaqsiir rawaahu abu daawuud. dumarka waajib kuma aha inay dhukurtaan markay xajiyaan ama ay cumraystaan. yacnaa dushooda ma aha laa wujuuban wala istixbaaban, waajibna maaha, sunnana arrintaasi uma aha. waxaa dumarka waajib ku ah timahooda inay gaabiyaan markii ay xajiyeen ama ay cumraysteen, oo xiirashadu fadli badan ay leedahay. rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi allahuma arxam ilmuxalliqiina 3 jeer, ilaah u naxariiso ragga dhukurta markay xajka ama cumrada dhammaystaan. markii afraadna uu yidhi walmuqasiriin, ilaahu kuwa gaabsadana u naxariiso. xiirashada fadligaa loo sheegay baa dumarka loo diiday. taana waxay culimmadu u daliishadeen haddii aanay daruura keenin gabadhu inay dhukurataa inaanay bannaanayn, waayo arrintaasi waxay noqonaysaa inay ragga u ekaatay, isu ekaysiisay. waxaa kaloo ay shabbahaysaa khawaarijta, qolada khawaarijta la dhaha muslimiinta xaqdarrada ku gaalaysiiya, dhiigoodana ku xalaashada. wuxuu rasuulku tilmaamay siimaahum ataxliiq, calaamadooda waxaa ka mid ah had iyo jeeraale inay dhukurtaan. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam lama sheegin isagoo dhukurtay inuu xajiyo ama uu cumraysto mooyaane. masalada labaadee ku saabsan gaabinta timaha dumarku ay gaabiyaan, dumarka waa u bannaan tahay timahooda inay gaabiyaan, waayo waxaa muslim saxiixiisa uu ku wariyey dumarkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu geeriyooday inay timahooda gaabin jireen. waxaase gaabinta timuhu aanay u bannaanayn haddii sababta timaha loo gaabinaya ay tahay isu ekaysiin dumarkaasi ay isu ekaysiinayaan dumarka gaalada ah ama dumarka faasiqaadka ee xumaanta lagu yaqaano. waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka digay qofka muslimka ahi dadka xunxun inuu isu ekaysiiyo. waxaanu yihi man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum, qofka qoom isu ekaysiiyaa iyaga ayuu la xukumiya oo masalada uga ekaaday uu kala xukumiya. haddii gabadhu ay uga jeedo inay ragga isu ekaysiiso oo timihii raggoo kale ay la soo hadhay, markaana ma bannaana, waayo rasuulku waa nacdalay dumarka isu ekaysiiya ragga. haddii sidaasoo kale gabadhu ay tabaruj uga jeedo inay timaha ay gaabiso ay muujiso oo ay ku xaragooto, markaana uma bannaana. marka haddii sababta keentay gaabinta timuhu ay tahay xaaje iyo baahi, sida xanuunkaa timaha ku dhacee la sheegay oo kale, gaabinta timuhuna qasdiyada iyo ujeedooyinka aynu tilmaanay ay ka maran tahay, wax dhibi sharci ahaan kuma jira gaabintooda. wallahu aclam. baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra. sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay haddii aan ku riyoodo nebiga calayhi salaatu wasalaam isla markaana sumadihii iyo calaamadihii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaan jiray aan ka arko, ma odhan karaa nebigii calayhi salaatu wasalaam ayaan arkay? hadduu qofku ku riyoodo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isla markaana uu yaqaano sifaadka iyo tilmaamihii xagga abuure rasuulku uu lahaa, ciddaa uu ku riyooday waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waayo rasuulku wuxuu yihi sida bukhaari saxiixiisa ku wariyey man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii faina shayطaana laa yatamahalu bi, qofka riyada igu arkaa macnaanoo sifaadkaygii leh, qofkaasi dhab ahaan wuu i arkay. waayo rasuulku wuxuu yihi shaydaanku aniga isuma kay soo ekaysiiyo oo iskuma kay mateli karo. ilaahay baa subxaana wa tacaala taa ka celiyey oo awood uma laha. haddiise qofku aanu garanahayn sifaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam, amaba se uu ku riyooday cid loogu sheegay inuu rasuulkii yahay laakiin aan lahayn sifaadkii rasuulku uu lahaa, ciddaasi uu ku riyooday laguma sheegi karo rasuulka calayhi salaatu wasalaam.